shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug isla markaasna ay ku shirsan yihiin madaxweynaha qaranka, ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa la soo sheegayaa in la isku fahmay qodobo qaar oo la isku hayay, iyadoo ilaa iyo hadda qodobo qaar la isku hayo. Madaxda mucaaradka ayaa ka digay go'aano qaar oo shirkaasi ka soo bixi kara, iyagoona warar suuqa wareegaya oo hadalhayn dhaliyay ay madaxda qaranka uga digeen isla markaasna ay sheegeen inaysan aqbali doonin firaaq siyaasadeed oo soo gala hay'adaha dowladda dalka ka jira, iyagoona sheegay in 8 February wixii ka dambeeya iyadoo doorasho aysan jirin ay sameyn doonaan tallaab kasta ay ku dhaqaaqi karaan. Beesha caalamka ayaa ka hadashay shirka ka soconaya Dhuusamareeb iyagoona 3 arrin markaasi ka digay. barnaamijkan ayaa idinkugu soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay ee inooga imaanaya Dhuusamareeb. Fadlan muuqaalkan like saar oo la wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan sida adigoo kale waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso. Fadlan daawade ku soo dhawow qodobadii aad hordhac daawatay iyagoo intaasi ka sii faahfaahsan. Hana ka hilmaamay channelkeena inaad subscribe aad waxaana markaana ku bilaabayaa oo aan si weyn diiradda ugu saari doonaa barnaamij wareedkeena shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee markaasi xarunta maamulka Galmudug. Shirka wadatashiga ah ee ka socda magaalada Dhuusamareeb ayaa heshiis horudhac ah looga gaaray arrinta gobolka Gedo oo xudun u ah khilaafka ka dhashay doorashada dalka ee 2021. Madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir ayaa isfaham bilow ah ka gaaray xiisadda gobolka Gedo oo muddooyinkii dambe ay xiisad xooggan ka taagneyd, waxayna heleen xal ay ku wada qanci karaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, sida ay xogogaal ah markaasi ay sheegeen oo ku dhow shirka halka uu ka soconayo. Dhinacyada ku shiraya Dhuusamareeb ayaa isla gartay 2 qodob oo la rumaysan yahay inay xal u noqon karaan xiisadda Gedo, taasi oo dowladda federaalka iyo sidoo kale Jubbaland bay wada aqbali karaan. Arrinta Gedo ayaa waxaa xalkeeda loo saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si ay xal buuxda uga gaaraan, waxayna soo jeediyeen in arrintan lagu xaliyo qodobada soo socda: in ciidamo booliis AMISOM la geeyo Garbaharey oo ah magaalada labaad ee Jubbaland ee doorashada ay ka dhaceyso si labada dhinacba aysan awoodda doorashada u yeelan; in guddiga doorashada Jubbaland la geeyo Garbaharey si doorashada ay halkaasi uga qabtaan iyadoo amnigooda ay sugayaan AMISOM. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sidoo kale doonaya in maamulka gobolka Gedo ee Jubbaland lagu celiyo Garbaharey, gaar ahaan duqa magaalada, taasi oo meesha ka saaraysa maamulka ay dowladda federaalka u samaysatay gobolkaasi. Xiisadda gobolka Gedo ayaa u muuqata in xalkeeda la helay, waxaana la rumaysan yahay in haddii dalabka Axmed Madoobe ee Garbaharey la aqbalo, la saxiixan doono heshiiskan is-afgaradka ah. Wararka Dhuusamareeb ayaa ku guda jirnaa weli. Beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen uga hadleen shirka wadatashiga ee ka socda magaalada Dhuusamareeb oo looga hadlayo muranka baahsan ee ka taagan hanaanka doorashada dalka. Saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu horeyntii soo dhaweeyay shirkaasi, iyagoona ka digay inay ka soo baxaan wax ka bedelan hanaankii doorasho ee hore loogu heshiiyey ama geedi socod kale oo kan barbar socda ama doorashooyin qayb ka ah oo aan loo dhammayn. Waxay sheegeen in madaxda qaybta ka ah shirkaasi ay muhiimad gaar ah siiyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xalka gaarista khilaafka doorashada si loogu heshiiyo hirgelinta hanaan aan ka bedelnayn midkii 17 Sebtembar balse meesha ka saaraya khilaafka taagan. Sidoo kale waxay ku baaqeen in dhammaan madaxda siyaasadda ay mudnaanta koowaad siiyaan hirgelinta hab hore loogu socdo, meeshana ka saaro dib u dhac dheeraad ah oo ku yimaada doorashooyinka. Ugu dambeyntii, saaxiibada beesha caalamku waxay mar kale u soo jeediyeen dhammaan madaxda Soomaaliya inay heshiis wada ogol ah oo la isku raacsan yahay ka gaareen ama ay ka gaaraanba hirgelinta doorashooyinka si degdeg ah oo markaasi ah arrinta danta qaranka ku jirto. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa si wadajir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD,
Ireland, Talyaaniga, Jaban, ururka jaamacadda Carabta, Holland, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turki, Uganda, boqortooyada midoobay ee Britain, dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay. intaas ayaa soo saartay. markaan haddaynu fiirino musharaxiinta mucaaradka, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maanta si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka wada tashiga ee madaxda dowladda iyo kuwa maamulada uga socda Dhuusamareeb. Sheekh Shariif ayaa sheegay in xilligan ay ahayd in doorashada madaxweynaha oo kaliya ay harsan tahay halka doorashooyinka kale ay qabsoomi lahaayeen, taasi oo uu ku tilmaamay nasiib darro. waxa uu sheegay in golaha midowga mucaaradka ay ka xun yihiin inaan heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka iyadoo uu dhammaaday waqtiga dowladda loo mudeeyay. shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu wacd ku maray in marnaba aysan aqbali doonin muddo kororsi ka soo baxa shirka Dhuusamareeb, isagoona xusay in shirweynahaas lagu gaari karo oo kaliya heshiis siyaasadeed, isla markaana ay muhiim tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo dastuurka u taala dalkan. ugu dambeyntii waxa uu sheegay inay muhiim ahayd in shirka Dhuusamareeb ay qayb ka noqdaan midowga musharaxiinta madaxweynaha, gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka, kuwaasi oo hadda dibad joog ka ah kulamada looga arinsanayo muranka doorashooyinka dalka. hadalka Shariif ayaa imaanaya xilli magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug uu ka socdo shirweyne u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulada dalka uu qayb ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir, isla markaana looga arinsanayo ismarigwaaga doorashada, kaasi oo lagu wado in laga soo saaro go'aamo xal u noqon kara khilaafka ka dhexeeya saamilada siyaasadda dalka Soomaaliya isku haysata iyo doorashooyinka dalkaba. guud ahaan nabadda waa naga intaa barnaamij waradka ka daawanaysa channelkeena Zucamada Official. tan iyo warkan kiisa xigay dib isugu kulmi doonaan waxaan